wacan oo wanaagsan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan oo halkaad nagala socotaan waa Liban Show oo calabaad ka daawataan telefishinka qaranka Soomaaliya xaruntiisa magaalada Minneapolis ee wadanka Mareykanka. daawadayaal dhageystayaal Liban Show toddobaad walba waxaanu ku soo qaadanaa waxyaalo bulshada Soomaaliyeed ee xiiso geliya. toddobaadkani waxa aanu ku eegi doonaa dhalinyaro Soomaaliyeed wiilal iyo gabdhaba oo marti ku ah gobolka Minnesota isla markaasina soo booqday stuudiyaha telefishinka qaranka Soomaaliya xaruntiisa magaalada Minneapolis. dhalinyaradaasi waxa ay xambaarsan yihiin urur la yiraahdo kacdoonka ama aan yiraahdee waxay la dagaalanka qabyaalada. ururkooda magacooda la yiraahdo kacdoonka ka soo horjeeda qabyaalada. waa rune waxa halkan la keenay wadanka Mareykanka xitaa waa qabyaalad cid la dagaalanta ayaa la waayay, laakiin waxa loo helay dhalinyaro Soomaaliyeed oo runtii degan wadanka Ingiriiska. ayaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo ugu horeyn waxa dhinaca fadhiya Cabdifataax Faysal oo ah afhayeenka ururka la dagaalanka qabyaalada. waxa kaloo ku xigta Faadumo Yusuf Bisharo Maxamuud. waxaan leeyahay marka hore ku soo dhawaada telefishin qaranka Soomaaliya ee Liban Show. waa gartay Cabdifataax waxaan rabaa adiga inaan kugu horeysiyo maadaama adigu afhayeenkii ururka aad tahay. dabcan dad badan baa isweydiiyay qabyaalad la dagaalamayo dhalinyaro waliba la dagaalamaysa waa waxaan wiri loo hore loo arkin. anagu reer Minnesota daan ahay way nagu cusub tahay. waxaan arki jirnay qabyaaladu odayaashii waliba ay dhahaan wareeyada qabiilku waa inaa wadaa ma aha inaad ka sii tagtid idinkuna hada qabyaalkii baa la dagaalamaysiin. waa arrin wanaagsan. bal iga waran warbixin naga sii goortaad aasaasteen iyo waxyaalaha ma taqaana ururkan aad sameeysan hadan. Liban horta markood ma san tahay adiga iyo dhamaan bahda SNTV fursad aad siiseen. waa sida sheegtay hadda daqiiqado ka warbaahdaya la sheekaysanay magaas waxa la yiri wiil baa tahay waxaan maxaa ku dhaxgeliyay horta ma dhamaatay ereygaas dhalinyarada tiine waxaan maxay idin dhaxgeliyay laakiin waa in mid la ogaado dhalinyaradu waa mustaqbalkii berri marka wax lagu gaaro markii la waayay mustaqbalkii maanta inaan noqono danta keentay waxaan u dagaalamayna ma wax dan shakhsiyeed waa dan aragnay ama sida noola muuqato ummadda Soomaaliyeed ama jiilkayga iyo jiilka dambeeyba hadii aan maanta wax loo tarin lumi doona kacdoonka soo jeedka qabyaalada afka qalaadna lagu yiraahdo anti tribalism movement waxaan asaasnay 17 bishii koowaad sanadii 2010 muddo hadda laga joogo 4 sano iyo 5 bilood hadii aan khaldanayn kulay maalmo 3 maalmood ka hor noqotay 5 bilood. sababta waa asaasnayna waxay ahayd sida noola muuqatay xilligaas Soomaaliya marka la eego waxbarashada dhibaato ka jirtay, qurbihii dhibaato ka jirtay, dawlad la'aan way jirtay, abaaro way jireen, wax walba way jiraan. waxaas neeray xagee dhibaatadu ka iman kartaa ma aqoon darrada keentay ma halkan baa keentay ma cadaalad darrada keentay. نعم مركا كيك نحسر بلا ومدة دي قبيلة اللي جوعي كلي دي قبيلة إسكال عفان مصورة كلمة متى قرن ما دلت دي قرن ما دلت ترى صورة كلمة متى إنه مدو وحبرتو أو مدو كلا دكتو ودم كسيد وهانجر كسور مخده مركزي بينه صورة كشين عن لذا بدو تاجنو كعدون كسوريات قبيلة ده مدرس أن إلا 4 سنة كدبنا عن وليسو عنه أن ما أنت عن كسوق النهاية تلك مرايكن كجارهان مقالة مينيابوليس مينيسوتا. وقت هذا ما سنتهي. فاضمو runtii gabar Soomaaliyeed ayaa tahay dhalinyaro ah. waxaad ma aragtay aad u soo baxday hooyay aabaa ku dhalay dabcan gurigaaga soo tagteen inaad la dagaalantid qabyaalada. maxay tahay waxyaalaha kugu kalifay marka adigoo gabar yar ah oo shaqo kale aad sameyn kartid ama wadanka waxyaalo kale aad u qaban kartid inaad qabyaalada la dagaalantid. والله اللي بنرت وما صنتها هذه أنا عاومش نقصد دويسي كل ولادك عبد الفتاح هذا الكي أنت بدن دحي لكن سدو دحي لأن يرى النهاي مستقبل كمان طبعا النهاي دليل الصومالي مستقبل حد هان مستقبل كي بحال النهاي future كصوماليا وأنا واحد حاجة أنا ما أنت بحاول نقوم ويني مستقبل كده يرى النهاي مستقبل كمان تاع النهاي waxa igu kalifay inaan la dagaalamo qabyaalada oo anagu dhalinyaro isugu imaano oo shaqo haysan oo family haysan oo life haysan waxay tahay inaan dadka waalidiin haday noqoto dadada haday noqoto inaan wacyi gelino qabyaalada hadii aan hadda la bilaabinin oo dadka anaga oo managa waaweyn laga wacyi gelinin dawladda soo ku dhismaya so hadaan maanta anagu aan sameeynin oo biri sugno yaa sameeynaya birito so hadda aniga aan believe karsanay maanta inaan ahay mustaqbalkii maanta anagu dhalinyaro ah وأنا هانت بلابنا أنا مستقبل في عنا أركنا الصومالي
waxyaabahaas oo kamid waxay ugu kalifaan English bishaaro adiguna maxaa kugu kalifay inaad maaragtay ku biirtid ururkan la dagaalanka qabyaalada because firstly waxaan xasuustaa markaan ka shaqeyn jiray summer school and ana caruurta oo isku dagaalayeen qabeel markaas maaha broke yes you know caruur oo 13 14 oo mix isku caynayaan qabeel markaas ka naxay so and plus wadankeena wuxuu la joogi lahay until now comes because of qabeel you know it's affecting us politically economically socially so that's why I wanted to join anti-tribalism movement and also in a barno Somali the qabiilka meesha ka imaado first before we misuse it so inshallah aad aad ma santahay waa gartay Cabdi Fataax sida aad la socotid dhalinyaro fiican aad tihiin runtii soo xilqaamay inaad la dagaalantaan waxyaalaha runtii wadankii Soomaaliya 20 sano la soo dhaafay soo burburiyay haatan marka aad fiirisid miyaad isleedahay waqtigan la joogo in dhalinyaradu ay la dagaalamaan qabyaaladu way tahay xilligii la joogay koleyba way jirtay xilli sida nagu maqaalaha xilliyadii dawladda in la isku dayay in qabyaalada la joojiyo in dad badan yiraahdeen qabyaaladii waa la aasay xilliyadan waxa jira barnaamijyada naga aqoon badan ay wadeen naga cilmi naga way aragsan markaan waxaan isleedahay wax walba waqtigeeda ay leedahay kuwii way isku dayeen laakiin ma aaminsan inayna sameyn weynin laakiin dadaalkiiba maybe la hakiyay maybe la joojiyay marka waxaan isleedahay hadii dadaalka ay wadi lahaayeen maanta noolama u baahdeen ba markaan waxaan aaminsanahay wixii shalay la bilaabay inaan maanta si aan baqaadno aan dhisno anaguna aanan noqonin dadkii shalay oo kale aan sii wadnaa aan joojin haddii ay suurtagal weyseen anagu xilligayga ama generationkayga nasiib u yeelano jiilkayga inay qabyaaladu istaagi weyso awlaadu ilaahay nasiib doonay waxa ay sii dhali doonaan inay maskaxdooda ka baxdo anagu u dadaalno wadankana ku nooshiin bada xilliba cunsurnimo jirtay qofka midoo adkeed inuu nolosha helo wadamada bari wadamada inta badan adduunyadana wadamada cadaan ku badan way laakiin lama joojin xilligaas waa la dadaalay dadaal kadib adduunyada had maanta waxa la ogolaaday in la wada noolaado qofka isagoo kala diina kala midaba kala dhaqana inay wada noolaadaan marka dad baa ka soo shaqeeyay marka anaguna hadda maanta ka shaqeeyno de kullee insha Allah mustaqbalka wax suurtagal ah waana xilligeedii baan aaminsanahay aadiya laakiin marka aad fiirisid soo 4 sano ayaad wadaan ururkan aad la dagaalamaysiin ilaa haatan maxaa idin qabsamay markaa waxyaabaha aan maanta dhihi karno horta markaad wax sameynayso mujtamaca ama wax ka bedelayso fikirku horta waxaad sahlan maahan mujtamacana way sii kala adkaadaan Soomaaliya oo dadka odayaasheeda aan ilaa khayraasi kulli waa bayaashin wax kama sheegayno laakiin mar walba aan isku dayno waa wax ugu adag caqabada ugu adag ka timaado caruurta yaryar ay wararsan ma waxay qabtaan bay waayeen wararada naga taga anagoo adigoo dhalan ba adduunyo soo taagnayn wax walba hal ilaa laakiin odayaal way jiraan wanaagsan oo kule ma sha Allah daqiiqada ka hor Soomaaliya hadda la jooga macallina unugu dhiirigelinay waxa wadnayna sii wadno umadu isku ma jirto waxa qabsoomay waxa weeye inaan umadii fariinta horta gaarsiinay wacyi gelinay in ay hooyooyin badan oo Soomaaliyeed waxay maalintii ugu kuleyba shakhsiyan aan dhihi karo maalinta aan aaminay in waxa wada sii wadi karo hooyooyin Soomaaliyeed oo ku tagaaray la kulanay barnaamijka ablooday markuu dhamaaday in hooyo Soomaaliyeed istaagtay tiray shakhsiyan anigu waxaan qof xaafadana Soomaaliba ku badneed qayb ka mid ah London inta badan lagu xamanay inay dadka ay u qudhooda heshiin waayeen hooyooyinka horteed ka istaagtay tiray anigu waxaan qof sidaas ah laakiin wixii maanta ka dambeeyo hooyooyinka dadka hortooda qof Soomaaliyeed inay qof kale Soomaali horteeda ku qirto inuu qabyaaladiista ah laakiin wixii maalintaas ka dambeeyo iska bedeli doono ideologigaas waxay maalintii ugu farxadda badneed aaminay qof maskaxdiisa wax la bedelo waxa uu adeeganay haddii aan isniri dad hooyo Soomaaliyeed oo halkaas joogta aad bedesheen kulli boqolaan kalena waad gaari kartaan dhalinyaradan waa wax kale oo lagu faano mar walba dhalinyarada heerarka jaamacadaha tagno aan walba ka ciigelna yaanaan marin wadada jiilkii hore maray inta badanna way aqbalaan fariinteeda wadankii waanu tagnay barnaamijyo iyaduna ku qabanay qurbaha wadamo badan aanu tagnay oo maanta wadanka waxna keen waana iyaduna hawlaha fariintii gudbinaa fariintu dadku way gaartay wacyigelintu way gaartay marka dadku labadaba way tahay qof qaatay iyo qof diida so marka insha Allah waxaan rajeynayaa inay dhamaantoodna wada qaataan aadiya Fadmo inta aad ku jirtay programkani waxyaalaha ka yaabiyay dadka markaad la kulantay maxaa kamid ahaa wallahi dawaa hadda walaalka Cabdi Fataax sheegay oo taaduu dhahay dadka in ka waaweyn generation in ka horeeyo dhahay horta baan dhalan ilaa haddana waa joognaa maxaa bedeli kartaa waxyaaba iga yaabiyay kamid tahay waxyaaba aan ku farxay oo badan aad u badan intaan ku jira 4 sano because
dadkeena Soomaalida ah siiba dadka yar yar qabiil iyo qabyaaladii baa iskaga dhex qaldan labadaas aan kala garanaynin so adi afartii sano hadda soo jirnay marka iskuulada tagno oo ama jaamacadaha tagno oo dadkii u sharaxno qabiilka iyo qabyaaladu maxay kala yihiin aan hadday qabyaalad isticmaalaan dhibaatada keeni karto the reason aan halka u joogno iyo sida dadkeena ka waaweynaa ama wadankeena u soo burisay u dundumisay haddii iyagiina guriga laga soo baro ama xaafadihii ka bartaan ama meel Soomaali badan yihiin degan yihiin oo lagu dhaho qabiilkaas aad tahay qabiilkan ha u tagin qabiilkan waxaan ha ku samaynin das qabiil ma aha waa qabyaalad oo wixii wadankeena buriyo waa waxa inta halka u joogno so annaga marka dadka yar saa u sheegno aad inoo dhiirigelinaysaa waxaan aragnaa dhalinyaro aad u badan u dhahaya like waxaan ka faa'iiday maanta sessionkan ama workshopkan aad iyo aad u isticmaali doonaa rest of my life daa waxay because qofna ma u sharaxayo hooyo kasta ama aabba kasta no hooyo kasta aabba kasta but majority ilmuhu marka soo korayaan waxay dhahaan qabiilkaas aad tahay saas aad tahay saanata qofkan ka sarreysa qofka ha u tegin qofka ha u dhawaanin qofkan ha guursanin laakiin annaga dhalinyaro ahaan maadaama aan wacyi gelin ee dhalinyaradii fahmeen waxaan feel garanaynaa a lot of benefit Basharo, waxyaalaha aad u sheegtaan, what do you tell the people when you just telling them, hey, this, stay away with this? What language you guys using? It depends, language-wise? Or yes, language-wise, what language? Because the youth, for example, they born in London, they grow up in London, they speak English. And their mother inside the house, they telling them, hey, you're from that is your uncle, but he's from that. So how are you going to talk to them? I think with the oldest and the youngest, obviously it's a different language, and also the way we do things is completely different. So the atmosphere of the place. But with the young people, right now we've got over 100,000 followers, so members. So that's a good thing. That means that and the majority of them are young people. So for us, it's a positive way that a lot of people are listening to our message and that they're following. And we've got this many people against tribalism. So that's even good for us. But with young people, we speak on the same level because we're young as well. And when we speak, they understand. And we give them scenarios and, we actually give them case studies and put them in there and see how they would feel, what the other person would feel. So. Well, Cabdifataax, marka aad fiirisid tan iyo markaad aasaasteen ururkani dadka idinku soo biiraya ama idin maaragtay leh aad baad u mahadsantiin wax fiican baad qabateen dadka waaweyn iyo dadka yaryar heebaa u badan isleedahay boqolkiiba dadka yaryar marka horta aan bilaabeynay annagu waa dad dhalinyaraan ahayn dhalinyaraan ku bilownay marka ugu horeysay waxaanu ka bilownay wacyigelinta ugu horeysay waa dhalinyarada saaxiibadayda dadkaan naqaanay dhalinyaradii deegaanka inaan iyagu wadno sidaan iyagu u wadnay maalinta ka dambe wuxuu noo dhiibaysay inuu wixii sii weynaadaan markii weynaadeen waxaan isku dayna balaan niri okay maqaadahan tagno odayaasha xaafadda aan u tagno odayga ama xaafadda markaa dhacday wixii ku soo biir application formkan buuxi website-ka gal Facebook nagu soo biir inuu intaas oo dhan fursad u helin baa laga yaabaa inuu warqad yar ku buuxinay 2 minutes ku dhibsado inuu intuu internet-ka galo website-ka galo ama inuu Facebook oo lahayn baa suurtagal ah wiilka ama gabadha dhalinyarada ah oo Facebook-aaga ii sheeg waa ka Twitter website-ka inay gasho inay waraaqdii buuxiso xubbi u sahlan tahay marka maybe generation-kuna uu kala duwan yahay oo teknolojiyadda iyo casriguna way keeni kartaa mid kalena maybe markaan dhalinyarada kalena way fududahay inaan aad u sheekeysano halka marka loo eego aabaha ama uu dareemayo in uu qofka yar oo inta badan aan mar walba xiraada age discrimination baa lagu wadaa inta adan lagu cunsuriyayo qofku waa inuu aamini karaa qofka yar inuu wax ku sheegi karo ka weyn wax ku sheegi karo aniga haddii aan aabahay ama waalidiinteena aan dhihi karin waxaan way khaldan yihiin ay dhahaan wax yar edab malhida naga fariiso markuu isagu dhaho waad khaldan tahay sidee u filayaa in anigu wax ka dhageysto markuu aan isagu tusaale in noqdaayo haddii wax wanaag loo sheego inuu wanaag ka qaato si marka iyaguna wanaag noo sheegaan aan u dhageysano waalidiintayada saddex anaga nadiidaan adna waxay manaysa iska celiyo adna la muran oo adna la dagaalan marka si waxaas oo dhan looga baxo waa in la is dhageystaa dhalinyaradu inay wax sheegi karta la aaminaa dhalinyaradu in la amba qaada ay tahay haddii aan anaga maanta lagu habayno wadada saxda oo la oran okay waxa waa wadankiini dhibaatadan baa soo gaartay dhibaatadan idinka ka saari kara anagina lagu dhiirigelin laakiin la yiraahdo fariista iyagina waxuma nooma wadaan waxaan u fadhina ma jiro marka waxa waajib nasaarinta in anagu intii hadlayso xumaata sheegaysa sheegtay intana dhiirigelinaysa dhageysano hawsheedana sii wadana laakiin marka aad fiirisid dhalinyaradu badanaa waxay u bateen inay ku biiraan kooxaha maaragtay argagixisada
arrimahaasi iyo markii aad usoo fiirisid qabyaaladu ma laga yaabaa inay lug ku leedahay ay maaragtay taa laftirkeedu haddii laga soo badbaadiyo qabyaaladu laftirkeedu tii kalena ay ka joogi karaan dhinacaasi Soomaaliya dabcan waad booqateen saan filayo waxyaalaha mataqaana aad la kulanteen iyo waliga horta xaggaas waa arrin inta badan waxay u baahan tahay dad nogasi aqoon laakiin de waa adana maadaama dhalinyaro nahay qurbi joogna nahay kolleyba mar walbana dee wadanka ka dhoofanahay dhibaatadu wixii Soomaali geysto horta meel walba qof Soomaali joogo way saameynaysaa aniguna aad rabina ugu sii fogaada laakiin qofkii cilmi ama caqli la ama cilmi gaaban oo diiniyan ama maadiyan laba isaga buu dareemi karaa khayru khalqillah wax umka lagu abuuray nabiga ee uu khayr badnaa sallallahu alayhi wasallam nabiga intuu dib u fariistay waligiis muusan ummad kala dagaal gelin mar walba haddii la jihaaday isaga safka hore ku jiray taas marka waxay ku cadeynaysaa hadduu jihaad jiro khayrka in lagu kala hormaray inay tahay nabigayga adeerkiisa Xamza wuxuu ku dhimanay jihaad beed Abu Bakar wuxuu galay jihaad beed Umar khulafaa raashidiin iyo 10 mubashir fil janna igna jihaad bay galay laakiin anagu waxay adduunyada maanta lagu jiro adduunyada soo ka duwan tahay in la yiraahdo dhalinyarada kaca jihaadama wadankeena difaaca isqarxiyo idinku dadkii amarkii dhiibay inay dib u fariistaan jannada hadii loo cararayo de jannada ay galaan mid xigta ay caruurta la marna baabinayo habayali hooyeen baa dhalay ninkan wax sheegaya caruurtiisu kuma jirto ku adeerku yahay kuma jiro isagu caruurtiisu nolol inta badan ama nolol fiican bay ku noolyihiin ama wadankiiba kuma noola caruur islaameed oo iskuulaad dhiganayo hooyadu wax baranaya bay soo marna habaabiyeen caruur kale ku qarxiyeen taasi de waa inta aan kolleyba aqoon yar u leeyahay ama ogahay taasna wax u baahan iyadoo qudheeda in la eego waxa yeelay waxan dhibaatada soo gaarto waa dhalinyaro ka dhibaatada geysto waa dhalinyaro balka looga ciyaarayna waa naga kolley dadkaas mar habaabin waxa dheeraadee iyagu dib ay ugu laabtaan diintana kolleyba wixii nooga aqoonano iyo culimada ayaa ka hadli karta Fadumo maxaad is leedahay ee lagu badbaadin karaa dhalanka Soomaaliyeed caruurta Soomaaliyeed dhalinyarada maxaa lagu badbaadin karaa is leedahay to educate them like what in educate markaan dhaho ilmaha Soomaalida most of them waxaan u malaynaa education buug iyo qalin exactly that's what education buug iyo qalin ma aha educationka ilmaha waxbarashada ilmaha Soomaalida ama youthka lagu educate garan karo haday noqoto hadda saa tilmaamtay oo kale to argagixisay iyo qarxiso haday noqoto dil iyo dhac iyo xiritaan iyo gang haday noqoto shaqo la'aan waxyaabo badan ba hadda dhalinyarada qurbaha jooga afka gareynaya oo Soomaalida gaar ahaan marka ilmaha lagu dhaho adika ilmaha in la hadlay rabaa dad laal eg inay la hadlaan oo isku daayihiin problemka in laga like ilmaha wax dhibaya group kasta oo Soomaali oo dhalinyaro ah different problem ba haysta haday qabyaalad noqoto haday crime noqoto haday argaxiso noqoto so sida hadda walaalka Cabditax sheegayba uu dhahay dadka la taanta gadaal u fariistaan ilmaha isticmaalaya ama dhahay waxa samay hooga u qodeen ilmihiina ku dhacaan so ilmihi in dadka gruuba badan inay kacaan oo group kasta meesha dhibaatada Soomaalida ay ka jirto oo dhahay dhalinyarada dhibaatada haysa group inay is urursadaan oo dadka la hadlaan oo beenaxeedo sharxaan fahansiiyaan I believe in ilmahaas dhageysan lahayn sidii lahayn because most ciyaalka dhalinyarada aragno dhinac kasta oo Soomaali ah marka wadiis waxa maxaa u sameynaysaa future-kaaga see u aragtaa hadda waxa sameynaysaa xagee future-ka ku geynaysaa maysan oga because wax u sheego u sharxay male samay okay waa ku sameynaya because dhalinyaranimada u geynaysaa saas aniga aaminsanahay and Basharo and can you tell me I mean how many groups you guys are, how many employees and how many people are just in this organization? There's 12 of us. 12 of you guys only? Yeah. Wow. It's 7 girls and I'm sorry, 7 boys. 7 boys. And 5 girls. And 5 girls. Yeah. Okay. And Cabditax waxaad ku sugan tihiin gobolka Minnesota. Dabcan waxaad sii faafinaysiin ama sii wadaan sidii ma aragtay dadka aad u gaarsiin lahaydeen wax qabadkiina hay'adiina aad wadaan Minnesota hadda inta aad joogtaan Ohio waa tagteen gobollo kale ayaa tagteen bal iga waran waxyaalaha aad ku soo aragteen gobollada kale farqiga u dhaxeeya iyo wadanka aad ka imaateen
horta qaaradda Yurub aan ka nimid qaarad kale nimid horta farqi u dhaxeeya waa taas haddii laga soo tago waxaa iska dabiiciga adduunyada saacado kala duwan adduunyo kala duwan laakiin mujtamaca haddii loo soo galo Soomaalida horta Soomaalida waxaad moodaa meel walba aan tagnid wadada adduunyo qurba soo galaan ma ahayn kaayiga Afrika joogay kaayiga Yurub yimid ama kaayiga yimid ba qaaradan America horta markuu waxa la hadad wadan kale ku cusub dan nolosha siyaabo kala duwan baa loo raacay waana la kala deegaanaduna way joogaan dadka iyaga deer Ingiriiska jooga anagu wax badan kaga ma duwanin dadka jooga Mareykanka inkastoo aad dadka Mareykanka qof walba kule shaqo ku maqanaya dadku inay saddex shaqo ka shaqeynayaan dadku dabiiciyan noloshii unba waxa keenayna xaaladaha adduunyada lagu kala sugay maana dhaqanka Soomaaliyeed kuleyba idinku waxaan uga duwantiin magaalo Macawis iyo Daracshiid iyo Baati lagu wareegay waxa midayna Soomaaliya joogtid wadankan in anagu waxa iyaga xaq qurba in la joogo waa dareemi kartaa marka loo barbar dhigo magaalada meelo badan aan tagnay laakiin xagga dhaqanka iyo hab dhaqameedka iyo Soomaalidu waxaan moodaa inta badan inay ka sameeyeen qurba joogto waxyaabo badan dhalinyaro hadii la yaano kuwa badan oo hay wax kula soo kulan dhalinyaro badan oo heer jaamacadeed gaaray wax bartay oo barnaamijkayga xagga aan la soo kulanay in marka loo eego meesha ka mid ah dhalinyaro badan wax baratay way jirtaa dhalinyaro aan wax baran way jirtaa wax magaalada Minnesota waa maalintii labaad kulli wax badan ka sii sheegay laakiin waa ka sheegi doonaa marka insha Allah information badan si helay macluumaad badan waxaan rajaynaynaa in magaalada dadka joogan ay programkayga iman doonaan oo sabtida dhici doona waxyaalaha qaban doontaan sabtida marka soo bandhigi doontaan insha Allah soo bandhigi doonaa 14ka markii bulshada noo timaado inaan dhageysano iyaguna ay dhageystaan markaas baan waxa ogaan doonaa koleyba wixii magaalada Minnesota iyo hab dhaqankeena waa gartay waa hagaag daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan oo weli waxaanu bartamaha kaga jirnaa wareysigii gaabnaa oo aan la yeelanayay dhalinyarada Soomaaliyeed ee inoogu timid dalka wadanka la yiraahdo London ayagoo runtii u istaagay inay u dagaalamaan ama ay runtii ay wacyi geliyaan la dagaalanka qabyaalada runtii waa dhalinyaro Soomaaliyeed ee u kacday waad ogtihiin qabyaaladu inaysan fiicneen diiniyan iyo waliba dhan walbaba ay dadku ay aad ay u naceen waxaan toddobaad weekend soo socda 24ka sabtida waxa runtii ay soo bandhigi doonaan 4 sano waxyaalaha ay qabteen gobolo fara badan ayay soo mareen waa Minnesota ayayna la joogaan waxaana lagu qaban doonaa hadii ay yiraahdo xaafadda Soomaalida ay ugu badan tahay عدي تقانيا تقانا جوجت مينيسوتا سيدرا waxaana si toos ah uga daawan doontaan hadii ay yiraahdo barnaamijyada meesha ay ka bixiyaan televisionka qaranka Soomaaliya ayaanu si toos ah idinkaga soo gudbin doonaa hadii ay yiraahdo gabagabadii barnaamijka ayaanu ku jirnaa faadumo marka aad fiirisid gobolka Minnesota dabcan waxaad booqatay sida Maxamed Abdi Fataax uu sheegay suuqa Soomaalida ee Karmel bal iga waran waxyaalaha ku soo aragtay iyo London marka aad fiirisid والله سوق تايم أدو قابنا عن شوق عن قرطي كل ما لان تجمع منطقة صوبنا عبارة وصوبنا قربه هو مركز تأجوكتي تدك الصوم على ذا سكون مدان معي هل ملا سكو ورسنا هل ملا سكو إيماننا وحكستا one place عن سكو كان صنا which London أما يوروب إنه واسدة كلا هل كان واسدة كلا تو واحد يقول سوق ما واحد صابرته بقى ما دام أنا أوهاي تيجي حتى نحافظ وحوجا Soomaalida ku badnaan deganahay Minnesota dhexdeeda marka suuqa imaadeen dad Soomaali iyo meel joogan dukaamada arkay waa waxa aad ugu farxo markasta aan qurbahana meel kasta u badanahay inaan meel saas ku leeyahay Abdi Fataax adoon wali aan su'aal kale ku weydiiyay in hadafkiina marka mustaqbalka ah dama barnaamijkan asi wadano meel walba aad tagaysaan oo dadka u sii sheegaysaan hadafkiina mustaqbalka ah dadku Soomaalidu marka ay fiirisid hebel markuu waxaan uu sameeynayo dambu wataayo mustaqbalku madaxweynuhu raba inuu noqdo wasiir buu raba inuu noqdo maxay tahay marka dhalinyaradiina hadafkiina marka horta hadafkaygu waa waxaan ugu muhiimsan waa qabyaaladaas oo mar uu istaagtay ilaahay intaan noolahay hadafkaygu tuso ama sharci Soomaaliya intuu MP-yadooda ama xildhibaanadoodu fariistaan ay yiraahdaan wixii maanta ka dambeeyay sharcigaas bay dawladdu ka soo saartay oo lagu qabyaalad lagu ma dhaqmi karo qofkii ku dhaqmana sidaas buu face gareynaya sida adduunyada bu sharciyada uga jiraan wixii cusurnimo ku saabsan ama inay ummadda iyadu tiraahdo war dhibaato noo geystay jaahilnimo iyo xilligii xumaatada ka soo gudubne aan Soomaali way wiil yabtigi iyo xigaal iyo seedigi dadka ay waas dhex galaan oo Soomaalinimada aan ka doorano horta hadafka ugu horeeya wax kaas ma midda kale oo qofku madaxweyne rabaayo wasiir buu rabaayo
horta madaxweyne inaad noqotid waa 40 iyo plus in horta qofku gaaro sharci constitution-kayga ku qoran tahay qofku inuu 40 jiro iyo wixii ka weyn horta ilaa hadduu cimrigu nagu daayo qof walbo dee waddanku waa waddankayaga dee haddii aan dareeno inuu waajib naga saaran yahay in wax laga qabto waa gooni laakiin saacadda la joogo dee wax aniga shakhsi ahaan aan leeyahay wasiir baan rabaa madaxweynaan rabaa hadda qorshaha igu jirta hadda qorshahaygu waxa ay ugu muhiimsan hawshan aan wado laakiin haddii xilligaas uu ilaah naftu igu daayo oo 40 plus kaasaan gaaro oo waddankaygana arkay inaan kolleyba xaaladdu ku jiro kusii jiro dee wixii waajib iga saarnaa ka qaban karo waa ka qaban doonaa ilaa dowladda adoo ka faa'iidaysanaya fursaddan qaaliga ah ee dadka ku daawanaya maxay tahay fariinta ku aadan dhalinyarada iyo waalidiinta aad u diri lahayd markaa dhalinyarada waxaan dhihi lahaa kolley xilligeygii baa lasoo gaaray way dhamaatay xilligii la sugi lahaa in ummad kale wax noo qabato gacan shay ha noqoto ama jiilka nagu horeeya ha noqoto waalidiintan waxaan dhihi lahaa fursadda inay na siiyaan ay nagu dhageystaan aabbayaashuna inay bal wax yar kuraasta dambe fariistaan ay yidhaahdaan dadka waxbartay ee waddankooda iyo ummadooda raba in platformkii la siiyo aan laakiin la hor istaagin waxaan dhihi lahaa reer Minnesota gaar ahaan iyagana sabtida isku ay keena wixii barnaamijkan insha Allah idinkuna saad noo maqashaan idinkana wax idin kaga barano waxaan uga tegayaa 4 eray oo ah qabyaalada maya qoriga maya qalinkaha qarannimaha Fadumo gabdhaha ku daawanaya guriga jooga fariinta ku aadan oo dirleen marka waxay tahay والله gabdhaha fariinta u diri lahaa waxay tahay gabdhaha dhalinyarada ah ha suginina qof idinka weyn ama in miladaho experience ma lehidin wax ma sameyn kartiin hadalkan yaa dhageysanaya hope in la kalumiyo don't lose the hope you can make a difference everyone can make a difference hadaa rabtina Soomaali tahay oo Soomaali wuxuu qabatay dadkaaga wuxuu qabatay and you want to see the difference don't wait tomorrow start for today inshallah inshallah any message what message are you going to send to the youth I think and your experience each and one of us plays a part in making our country better. So instead of us judging others for what they do, we should start with ourselves and also contribute to our country. Inta meesha iska fadhino iska hadleen markasta oo madaxweyne wuxuu sameeyay sambuusmi anaga xaga iska fadhiya doesn't make sense. You need to go and contribute, but at the same time I say we need to start within ourselves in here before we go to Somalia, because I think we're corrupted ourselves. So I think we should better ourselves and then we can go back home inshallah. aad baad mahadsantiin waa hagaag daawadayaal dhageystayaal intaasi ayaanu ku soo gabagabaynaynaa toddobaadkani barnaamijkeena Liibaan Show oo si toos ah idinkaga imaanaya waddanka Mareykanka gaar ahaan studio-ga television qaranka Soomaaliya ee magaalada Minneapolis barnaamijkani toddobaadkani waxa aanu ku soo qaadanay dhalinyaro Soomaaliyeed oo noogu timid waddanka Ingiriiska ayagoo runtii wada sidii loola dagaalami lahaa qabyaalad waa dhalinyaro Soomaaliyeed haddaba haddii aan nahay bahda television qaranka Soomaaliya waxaan leeyahay meel walba aad joogtaan dhalinyaradaasi haddii ay la dagaalamayaan waa inaad kaalmaysaan waa dhalinyaro runtii u soo istaagay mustaqbalka waddanka iyo waliba jiritaanka ee waddankeena iyo dhalaankeena ay sameyn doonaan gobolka Minnesota ayay booqasho ku joogaan waxa ay qaban doonaan 4 sano waxyaalaha ay qabanayeen inay soo bandhigaan isteedo fara badan ayay soo mareen haddaba haddii aad daawanaysid television qaranka Soomaaliya aad degan tahay gobolka Minnesota iyo meelo kaleba waa inaad nagala soo qayb gashaa waxaan lagu qaban doonaa Cedar Cultural Center waa maalin sabti ah waa sabtigan soo socota saacadu marka ay tahay 6 ayuu bilaaban doonaa haddii ay yiraahdo haddii aad ka maqan tahayna waxaad si toos ah ga daawan kartaa television qaranka Soomaaliya waxyaalaha ay soo bandhigeen si toos ah ayaan idinkaga soo gudbin doonaa haddii ay yiraahdo barnaamijka waxay kala qayb galay Cabdifataax Faisal iyo Fadumo Yusuf iyo Bishaaro Maxamuud waxaan leeyahay aad baad mahadsantihiin kuna dhanka farsamada waxa ila joogay saaxiibkay Ilyas Muucow tafatiraha Muqdisho Times iyo waliba saaxiibkay Abdiqaadir waxa kale oo studio asaguna marti inoogu ahaa martidan nala joogtana meel walba geynayay saaxiibkay Southside oo aad gobolka Minnesota si fiican u taqaaniin hawlaha runtii uu qabana halkan lagu soo koobay kabin tan iyo kalantidana dambe waxay salaam anigoo ah Liibaan Xuseen السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.